سلامت هذا وديارة عطوبيا كترسن عيدا كقرك جمهورية الصوماليلاند أو كوكو وينيا تلس كودا عيدا كقرك جمهورية الصوماليلاند مدن مدحويني كسر دو وحتى كان ما أنت ينوجي يمت تليه هندي كود أنا مدحوينها جمهورية الصوماليلاند مدن عبد الرحمن أيها ينوجي يمت وأنا مركي رسالة اجتهان أو نوي ما دام أو تليهني هي إنه دوي حس تصالح هاي دسيو أثبرتنا أيام مهمة مدن مدحوينه وسلاكيش تلسك جود وحي طلع تصالح نصيص مدحوينه ياربانون هاي وأنا فلنا مدحوينه كسر شرف وين بيت هاي إن أنا ما أنت يدين دحين شوقه يدو حرينهين geesiyadii cududda iyo gaashaanka u ahaa qaranka Soomaaliland anigoo taliyaha guud ee ciidanka qaranka kana wakiilo shacbiga Soomaaliland waxaan qof idinku mahad celinayaa nafhurnimadiina wadaniyadiina iyo daacadnimada aad u hogar baxdeen ilaalinta xorriyadda iyo qarannimada Soomaaliland waxaan maanta go'aansaday inaan idin dhex imaado si aan ugu kuur galo xaaladiina dhageysto xogta iyo warbixinaha aad jeceshihiin inay la wadaagtaan isla markaana aan indheeyo oo aan kormeero halka ay tahay inaan ka bilaabo dib u habaynta iyo dib u dhiska aan la doonayo ciidanka qaranka dal kasta oo dunida ka mid ah haybadiisa iyo sharaftiisa iyo quruxdiisu waa ciidankiisa qaranka waxaan ku dhashay kuna koray kuna barbaaray guri askari waxaan ogahay duruufaha qoysaska ciidanka barnaamijka siyaasiga ah ee aan ku galay doorashadii madaxtooyada 2024 ee himilada difaaca iyo ilaalinta qarannimada waxay ahayd dhismo ciidan hela daryeelka ugu maamuuska sareeya kuna gaashaaman tababaradii ugu dambeeyay iyo hub casri ah kuwaas oo awood u leh sugitaanka amniga xuduudaha badda dhulka iyo cirka Soomaaliland hadafkayga koowaad waa dib u habaynta iyo casriyeynta awoodda ciidanka si yoolkaas loo gaadho talaabooyinka aan qaadi doono waxa ka mid ah samaynta qorshaha casriyeynta ciidamada qaranka samaynta istaraatiijiyadda amniga qaranka samaynta xeerar iyo nidaamyo maamul oo lagu tayeeyo qaab dhismeedka ciidanka samaynta tirakoobka ciidanka qaramaynta ciidamada madaniga samaynta ciidamo kayda iyo samaynta ciidamada cirka inkasta oo dhaqaalaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu hoos u dhac ku yimi sanadihii 2022 2023 2024 sababo aynu wada ognahay oo ay ka mid yihiin in dalku galay dagaallo doorashooyin iyo kaabayaasha dhaqaalaha oo dhaawac weyn soo gaadhay sidii gubashadii Waheen iyo Wajaale haddana waxaan fulin doonaa mushahar kordhintii ciidanka ee aan ballan qaaday ee ahayd 250 muddo xileedkayga waxaana ku soo saari doonaa digreete madaxweyne sida ay u kordhi doonto waxaan saal u dirayaa dhammaan ciidamada qaranka iyo qoysaskooda meel kasta oo ay joogaan aad iyo aad baa mahadsantihiin